kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada qodobada warka Kismaayo Cable ugu door karoon qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah qarax lagu aasay agagaarka madaxtooyada oo la fashiliyay banaanbax looga soo horjeedo jidadka xiran oo ka socda magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya Abshir Bukhari gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare oo dhaliilay arrin ay ka gaabisay xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr kulamo xasaasi ah oo xalay ka dhacay magaalada Dhusamareb ee xarunta maamulka Galmudug dawladda Soomaaliya oo ciidamada kamaandoosaha geysay Dhusamareb iyo qaramada midoobay oo loogu baaqay inay adkayso cuno qabantaynta hubka ee saaran Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka Kismaayo Cable daawadayaal haatan ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhameystiran ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya ayaa goor dhow qarxiyay miina lagu aasay halka loo yaqaan Shabeelle oo ku taal agagaarka taalada daljirka Tahsoon ee magaalada caasimada ah ee Muqdisho qaraxa oo jugtiisa laga maqlay xaafado dhowr ah oo ka tirsan Muqdisho ayaa waxa fashiliyay ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya sida aan xogta ku helnay ciidamada ayaa ka hor miinada inta aysan qarxin wadada xiray sidoo kalena ka fogeeyay dadkii halkaasi ka agdhawaa wadada qaraxa lagu aasay ee hormarta madaxtooyada qaranka ayaa waxa inta badan isticmaala madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale ammaanka wadadan ayaa aad loo adkeeyay iyadoo uu ku yaalo bar control oo laga ilaaliyo dhismaha villa Soomaaliya ma jira wax hadalaha oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan qaraxaasi xaaladda ayaa hadda si caadi ah ku soo laabatay waxaana dib u furmay dhaqdhaqaaqa wadadaasi banaanbax ballaaran oo ay soo abaabuleen darawallada gaadiidka dadweynaha ee BL-ka ayaa ka socda magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya dibadbaxa oo ah mid cabashaha ayaa waxa dhigaya boqolaal kamid ah darawallada gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya wadooyinka caasimada Muqdisho dadka dibadbaxaya oo ah kuwa caraysan ayaa xirtay jidad muhiim ah sida isgoyska Soobe iyo waliba wadada Buulaxuubay ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir dhaqdhaqaaqa wadooyinkaasi ayaa hakad ku jira waxaana dibadbaxayaashu diideen xitaa in gawaarida ciidamada ay maraan halkaasi qaar kamid ah darawallada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in canshuuro joogtaha laga qaado haddana aysan haysan wada ay maraan gaadiidleyda ayaa sidoo kale dawladda ka dalbaday in ay u furto wadooyinka haddii kale ay sii wadi doonaan banaanbaxyada ay uga soo horjeedaan jidadka xiran inta badan wadooyinka Muqdisho ayaa xiran muddo dhowr bilood ah oo xiriir ah taasi oo culays ku keentay shacabka ku nool gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa marar badan shaaciyay in la furayo jidadka xiran balse ma jirto ilaa iyo hadda wax ka dhaqan galay go'aankaasi gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare Abshir Maxamed Axmed Bukhari oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa si aad uga hadlay dhibaatooyinka ka dhashay fatahaadaha webiga Shabeelle ee ka taagan gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya Bukhari ayaa waxa uu sheegay in uu aad uga walacsan yahay xaaladaha dhinaca nolosha iyo waliba barakaca ka bilowday magaaladaasi sidoo kale wuxuu ku dhaliilay xukuumadda federaalka Soomaaliya inay ka gaabisay wax ka qabashada arrimaha bani'aadanimo ee ka taagan gobolka Hiiraan wuxuuna ku tilmaamay intaasi bedelkeeda dawladdu ay ku mashquulsan tahay arrimaha siyaasadda koox hubaysan ayaa xalay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ku dishay taliye ku-xigeenkii ciidamada ilaalada wadooyinka ee Buntland Maxamed Faarax oo ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada ilaalada wadooyinka ee Buntland ayaa lagu dilay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug saraakiil ka tirsan maamulka Buntland ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dilka loo geysay taliyahaasi kooxa bustoolada ku hubaysan ayaa dishay taliye Maxamed Faarax waxaana u suura gashay dilka kadib in ay goobta iskaga baxsadaan ciidamada isku dhafka ah ee xasilinta magaalada Gaalkacyo ee booliska gaarka ah ee Buntland ayaa baaritaano ka dhan ah raggii dilka geystay ka wada waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa waxa muddooyinkii dambe dilal ka geysanayay kooxa aan haybtooda la garanayn kuwaasi oo lagu beegsanayay taliyaasha ciidamada iyo waliba mas'uuliyiinta sarsare iyadoo inta badan mas'uuliyadda dilalkan ay dusha u riteen dagaalyahanada Al-Shabaab faahfaahinna dheeraadaha ayaa ka soo baxaya kulamo kala duwan oo xalay ka dhacay magaalada Dhusamareb ee xarunta gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kulamada oo ahaa kuwa xal raadin ah ayaa waxa garwadeen ka ahaa waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee Galmudug ujeedada kulamadan ayaa ahaa sidii xal waara looga gaari lahaa xiisada siyaasadeed ee
haatan u dhaxaysa dowladda Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlus Sunna wal Jamaaca wararka aan helayna ayaa sheegaya in odayaasha dhaqanka ay gooni ula kulmeen labada dhinac waxaana ay tilmaameen inay diyaar u yihiin in ay xaliyaan khilaafkaasi sidoo kale waxa lagu ballamay shirar kale si looga wada hadlo dhismaha galmudug dhinaca kale waxa Dhusamareb ku wajahan wafdi xildhibaanaha oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa laga soo doortay galmudug xildhibaanada oo ay ku jiraan kuwa saameyn leh ayaa sidoo kale waxay intooda badan ka soo horjeedaan guddiga farsamada ee ay magacowday dowladda Soomaaliya xaaladda galmudug ayaa weli ku jirta jahwareer ka dhashay ku dhawaaqista guddiga doorashooyinka maamulka oo dhaliya khilaaf horle waxaa mar kale saaka garoonka diyaaradaha ee Dhusamareb ka degay dhowr diyaaradood oo sida ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee harmacad ee commandoska Soomaaliya sida ay ogaatay warbaahinta ciidamadaasi oo ahaa laba horin ayaa gaaraya 60 askari kuwaasi oo laga qaaday magaalada Muqdisho wararka ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada lagu xoojinayo kuwa dawladda ee ku sugan halkaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamadan ay hordhac u yihiin wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo laga yaabo in uu dib ugu laabto galmudug shalay ay ahayd markii 60 askari oo kamid ah ciidamada dawladda la geeyay gudaha magaalada Dhusamareb ee xarunta gobolka Galgaduud dhaqdhaqaaqyadani ayaa ku soo aadaya iyadoo ay sii xoogaysanayso khilaafka u dhaxeeya dawladda iyo ururka Ahlus Sunna khilaafka ayaa ka dhashay magacaabista guddiga farsamada doorashada galmudug oo ay ku dhawaaqday dawladda dhexe kadibna ay ka hortimid Ahlus Sunna lama oga sida ay wax noqon doonaan balse dawladda Soomaaliya ayaa tan iyo markii ay la wareegtay howlaha galmudug waxa ay ciidamo badan geysay maamulkaasi guddiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay u qaabilsan la socodka cunaqabataynta hubka ee weli saaran Soomaaliya ayaa eedeyn culus u jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya guddigan ayaa sheegay in dawladdu ay ku fashilantay in ay kala shaqeyso howlaha la socodka cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya sidoo kale waxa ay ku baaqeen in la xoojiyo cunaqabataynta saaran Soomaaliya isla markaana lagu sameeyo dib u habeyn si looga hortago hubka sharci darrada ah ee gacanta u gala kooxaha ay argagixisada ku tilmaameen gaar ahaan kooxda al-shabaab iyo weliba daacish warbixinta guddiga ayaa sidoo kale lagu sheegay in cunaqabataynta dhuxusha Soomaaliya qayb ahaan guul laga gaaray isla markaana uusan jirin dakhli ay ka hesho al-shabaab